waa qiso cajiib ah. sidoo kale qisadan waxaad ku ogaanaysaa qalbi ku xiran Allah inuusan marnaba cidloon. qisadan ayaa waxay dhex martay hooyo muslimad ah iyo qoys Kirishtaan ah. qisada intaan u guda gelin waxaad ka daawanaysaa saaxiibka qiimaha badan barta YouTube-kan ku leenahay Socdaal 24 iyo aaladdeena TikTok ah Socdaal 24. qisada waxa ay ku bilaabanaysaa sida tan. qoyskan Kirishtaanka ah ayaa waxa ay diris lahaayeen hooyo muslimad ah. hooyada muslimada ah ma aysan dhalin wax caruur ah, sidoo kale Ilaahayna ma uusan siin. sidaas oo ay tahay mar walba waxa ay ku qanacsaneed abuurista Alle iyo nolosha markaas ay ku jirto. hooyadan muslimada ah ay mar walba waxa ay daa'imatay ama waxay mar walba sidoo kale qalbigeeda ku xirtay akhrinta Qur'aanka Kariimka iyo digriga Allah ayna mar walba saaxiib ka dhigatay. har iyo habeen walba sidoo kale kitaabka Qur'aanka Kariimka ayaana wehel u ahaa oo qalbigeeda ku weynaay. hooyadan ayaa maalin maalmaha kamid ah waxaa soo booqday qoyskii Kirishtaanka ahaa. weligood ma aysan soo gelin gurigooda. markaas ayaa ugu horeysay. hooyadii ma aysan u fiirin wax cunsuriyad ah, sidoo kale ma aysan iska dhaadhicin qoyskan inay yihiin Kirishtaan. waxayna u soo dhaweysay si qiimo badan oo sharaf badan. hooyadii markii ay soo dhaweysay gurigii qoyskii Kirishtaanka ahaa waxay ku qanceen soo dhaweynta cajiibka ah ee u sameysay hooyadii markii ay soo galeen gurigii. muddo markii ay joogeen qoyskii Kirishtaanka aabahood ayaa maamadii waxa uu weydiiyey aaway wehelkii guriga ayuu dhahay markaas oo ka waday ninkaadi. markaas ayay dhahday wehelkaygu waa Rabbi oo mar walba asaga ayaa garabsadaa wax walbana Rabbigeyga ayaa iiga qiimo badan. mar kale ayuu wuxuu weydiiyey aaway nuurkii guriga ayuu dhahay ninkii Kirishtaanka ahaa markaas uu ka waday caruurtii guriga joogtay. markaas ayay mar kale maamadii waxay ku jawaabtay wehelkaygu waa Rabbigeyga oo mar walba qalbigeyga asaga ayaa ku jiro mar walbana waxaa wax walba iiga qiimo badan akhrinta Qur'aanka Kariimka ayay dhahday. qalbi ku xiran Allah ma cidloodo. mar kale ayuu wuxuu weydiiyey halkee ka shaqeysaa adiga ayuu dhahay ninkii Kirishtaanka ahaa. markaas ayay dhahday anigu ma shaqeeyo oo mar walba waxaan ahay qof jecel digriga Allah iyo kitaabka akhrinta Qur'aanka Kariimka. ninkii Kirishtaanka ahaa aad ayuu ula yaabay maamadii jawaabaha ay bixinayso iyo sida Rabbigeeda ay u jeceshahay. markii dambe ayuu haddana waxa weydiiyey waa kuma Rabbigaada ayuu dhahay. markaas ayay hooyadii ku jawaabtay waa kan adigu ku abuuray iyo aniga abuuray, lama dhalin asna wax ma uusan dhalin ayay dhahday. sidoo kale Rabbigeenu waa kan dunidan oo idil noo dhisa ayay dhahday. maamadii markii uu yaabay ninkii Kirishtaanka ahaa sida quruxda badan ee hadalladu ugu jawaabayso iyo sida Rabbigeeda uu jeceshahay, markaas ayay qoyskii Kirishtaanka ahaa dhammaantood halkaas ayay ku soo muslimeen. nuxurka iyo qiimaha sheekadan ama qisadan laga baranayo ayaa waxay tahay maamadaas inay sabab u noqotay in dhammaan qoyskii Kirishtaanka ahaa ee halkaas ku soo muslimeen. qisadan waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed Mahad Socdaal. waxaad ka daawanayseen barta YouTube-ka ku leeyahay Socdaal 24 iyo aaladdeena TikTok-ga. saaxiibka qiimaha badan saaxiibada u share garay si aad u helna saaxiib adigoo kale. sidoo kale qisooyinka aad heeso barta hoose ee qaybta commentiga ayaad noogu soo reebi kartaa si bulsho badan aan ugu soo gudbino wax badan oo ka qarsoon. ku xirnaa hooyga qisooyinka Socdaal 24 intaan ku kulmi doono qiso noocan oo kale ah. waa saaxiibkii Mahad Socdaal oo idin leh nabadgelyo.